daawadayaal qaybta labaad wararkii wacala dhinaca Abdulaasiyaad oo 13 bishii afraad weeyay waa maalinimo isniina waa 20 qaybta labaad iyo wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinay dhinaca Abdulaasiyaad aan ku bilaabay markaan ugu horeysiiyay daawadayaasha qiimaha leh xanuunka faafaya ee daran ee dunida sida weyn u haysta ayaa isaguna waxa uu haatan u muuqdaa mid markaasi faraha ka sii baxay ayadoo dalalka qaarkoodna laakiin dhanka kale ay sheegayeen inay rajo jirto marka laga soo qaado dalalka reer Yurub ee lafdhabarta xanuunka u ahaa gaar ahaan Talyaaniga iyo Faransiiska iyo dalka Isbaaniya dalka Faransiiska ayaa sheegay in maalintii labaad ay hoos u ciirayso dhimashada soo gaaraysa iyagoo haatan sheegaya in ay diiwaan galiyeen kaliya 315 ruux taasoo maalin ka horna ahayd 345 taasoo ka dhigan bay dhaheen in dhimashadu marka dambaysa ay hoos u degayso sida uu sheegayo wasaaradda caafimaadka dalka France waxa ay dalka Faransiiska gabi ahaanba ama guud ahaanba ku dhintay dad ka badan 14,400 ayadoo sidoo kalena dalka la yiraahdo Italia ay iyaguna sidoo kale sheegeen in hoos u dhac aad u weyn ay ku timid dhimashada iyo soo ridashada dalka Spain ayaa iyaguna sheegay in iyadoo ay filayeen inuu hoos u dhaco dhimashadu laakiin xogaa kor u soo qaadantay marka loo eego maalintii Sabtida 510 qof ayaa ku dhintay laakiin maalintii ahayd shalay oo axad ahayd 619 geerido noqotay dalka Mareykanka baa ay hoggaanka u haya dhimashada iyo soo ridashada xanuunka ayadoo si weyn dalkaasi looga dareemayo xanuunka uu gilgilayo waxaana madaxweynaha dalka Mareykanka haatan uu la daal dhacaya talaabooyin uu doonayo inuu iskiisa u qaato madaxweynaha ayaa ku tooqaya inuu doonayo inuu furo dhaqaalaha dalka Mareykanka iyo suuqyada isagoo sheegay in uusan dalka Mareykanka uusan sii xamili karin inuu xidhnaado bilooyin kale laakiin dad badan ayaa ka digaya degdeg kasta arintaas ku saabsan inay keeni karayso dhimasho lixaad ninka markaasi lafdhabarka u noqday hogaaminta la dagaalanka xanuunka ee ah gudoomiyaha gobolka New York ee dalka Mareykanka Andrew Cuomo ayaa waxa uu madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ku tilmaamay talaabo kasta oo noocaas ah qaadin inay tahay mid waali wuxuuna sheegay in meesha la taagan yahay ay tahay wax u dhaxeeya dhimasho iyo nolol isagoo sheegay inuu fahmi karayo dhimka dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca marka ay noqoto shaqo la'aanta dadka soo gaaraysa laakiin wuxuu sheegay inaysan jirin wax ka qaalisan naf oo markaas la badbaadiyo si kastaba noqotee wararka warbixinaha dhinaca Abdulaasiyaad bayna bartanka ka jirnaaye ninkii loo jiray Julian Assange oo ahaa ninkii adduunka ka qeylaalsiiyay gaar ahaan reer galbeedka kadib markii uu sanadihii ugu dambeeyay oo dhan uu faagayay warbixino dhinaca Abdulaasiyaad oo markaas la xaday oo u badan kuwa safaaradaha Mareykanka ay direen iyo sidoo kale in uu doorashada dalka Mareykanka xataa warbixina ka qoray tii ugu dambeysay 2016 wuxuu ku dhumaalaysanayay safaaradda Ecuadoria ee ku leedahay dalka la yiraahdo Britain ayadoo markii dambana safaaraddaas Ecuadoria ay brisay kolka damana ciidanka dalka Britain oo u taagnaa wadada ay qabsadeen ayaa waxa la ogaaday in caruur ugu dhalatay intii uu xidhnaa halkaasi waxaana caruurta u dhashay baa leeyahay mid kamid ah qareenadiisa gobol la yiraahdo Stella Morris sida ay ku dhawaaqday markaan ay sheegtay Mrs Morris ayaa waxay sheegtay in iyada iyo Assange ay xiriirkooda cilaaqaadkoodu ay bilowday sanadkii 2011 kadib markii ay bilowday inay boqotay iyadoo markaas sameeynayay baaritaan bay tiri xog ah oo ku saabsan bal waxyaalaha loo haysto safaaradda oo ku xidhnaa waxaana ay sheegtay in 2015 oo ay dhashay cunugooda ugu horeeya haatan laba wiil bay u haysaa oo la yiraahdo Gabriel iyo Max waxay tiri Gabriel waxa uu dhashay 2015 halka Maxina uu dhashay bay tiri sanadkii hore 2019 waxa noo dhashay ayay tiri wiilkayga Max waxay tiri markii aan cilaaqaadka yeelanay waxaan ku farxay in aan waqti la qaato asagoo u baahnaa ayay tiri in waqti la qaato maadaama xaaladiisu ay adkeed haatan waxay ku baaqday in loo soo daayo caruurta aabahood iyadoo sheegtay in labada caruuraba ay ku haysato dalka Britain dalka Mareykanka ayuu haatan sugayaa in loo soo tarxiilo ayadoo goorsii horeysana laga tawray markaasi dalab uga iimaanayay dalka Sweden oo ku saabsanaa in loo soo gacan galiyo kadib markii laba haweenaya ay sheegeen inuu faraxumeeyay kuwaas oo markii dambe dacwadooda la noqday kolka la sheegay inay noqotay arrin la dhoodhoobay waa arrintii ugu yaabka badneed ee la sheegay nin markaasi xayran oo magangaliyo doon ugu jira safaarad gudaheed inuu caruurna ku dhalo kadib markii haweenadaasi ay halkaasi ay ku booqan jirtay si joogta isla markaana ay ugu tagi jirtay halkaad nagala socotaan oo wararkii wacalaha dhinaca Abdulaasiyaad daawashana qiimaha leh kan dunida oo dhan qodobo iyo warbixino way baydihayay iyadoo Afrikaanka ay warbixino badan oo dhinaca xanuunkan faafaya ayagana marba u soo gaaray dad badan waxay aaminsanayeen in dadka Afrikaanka xanuunka uu soo ku dhaco dadkaasina ma aha oo kaliya dadka Soomaalida ah laakiin xataa Afrikaanka kale ee ku dhaqan qaaradda America dadka gaar ahaan African Americanka ayaa sidaas aaminsanaa taasi waxay kasabtay in ay noqdaan dadka ugu badan ee xanuunkaasi u leedahay sida lagu ogaaday warbixin hordhaca oo laga soo saaray dadka ugu badan ee Mareykanka ee xanuunka aafeeyay ayadoo gobolada qaarkood rubaba ay bilaabeen in ay xanuunka dadka sida markaasi uu kala
u kala saameeyey mid madab ahaan ay kala sheegaan ilaa haddana gobolada ku dhawaaqay arrintaasi waxaa ka mid ah gobolada iyo magaalooyinka gobolka Illinois ee magaalada Chicago ugu weyn tahay New Orleans Las Vegas magaalada la yiraahdo gobolada Maryland iyo South Carolina ayaa ka mid ah kuwa kale iyaguna sheegay waxaana la sheegay in dadka madowga ah ay hogaaminayaan dhimashada dadka dhintay 70% ilaa 68 ayaa dad madow ah dadka dhintay haddaba waxa ay dhaqaatiirtu isku dayeen inay sharaxaan waxa keenay in dadka madowga ah ay dhimashada hogaamiyaan mid ka mid ah dhaqaatiirta magaalada gobolkaasi aan dhaho Wisconsin ayaa tafaasiil dheeraad ah markii ugu horeysay wuxuu ka bixiyay sababta ay dadka madowga ah u hogaaminayaan dhimashada isagoo sheegay in ay taasi tahay waa marka koobaad dadka madowga ah waxa qaabka ay u nool yihiin ama habka ay noloshoodu ay tahay ayaa ah mid aan ahayn markaasi mid caafimaad waxaana jira inay qabaan xanuuno aad u badan oo ay ka mid tahay xanuunka sakarowga xanuunka markaasi neefta iyo waliba sidoo kale xanuunada kale ee cayilka faraha badan ama cayilka markaasi xad dhaafka iyo dhiikarka iyo waliba xanuunada kale ay ka mid yihiin wadna xanuunka sidaas waxaa lagu sheegay magaalada Milwaukee markaas war qoraal ah oo ka soo saaray Dr. Quality Task oo tafaasiil dheeraad ah arrintaas ka bixinayay si kastaba ha noqotee waxaa mid ka mid ah oo dhalinyarada xanuunkaasi uu hayo ee madowga ama markaas Afrikaanka ah ama African Americanka ah waxa uu sheegay ama uu yiri waxa aan aaminsanaa oo aan maqli jiray dadka madowga xanuunka kuma dhaco waxaanan maqlay in Shiinaha xanuun ka soo bilowday uusan dad madowga ku dhicin laakiin dib ayaan ku ogaaday uu yiri aan taqonaha oo dalka Shiinaha aysan madow badan ba ku nooleen oo aysan hayn sida halkan oo kale marka waxa aan ayuu nin iska xanuunsanaya xanuunka qaba laakiin shaqada kama joogsan kareynin waayo waxaan haystay ayuudi laba caruura kuwaas oo biilkooda laga sugayay cid caawisana ma aysan jirto ayuu haba yaraatay ayadoo saas ay sheekada America taatan taallay tahay ayaa dad badan waxay soo kale ku eedeynayaan in aan dadkan madowga waxa loo qaban oo lagala markaasi lagala tacaalo dhinaca waxay yiraahdeen caafimaadkooda iyo badqabkooda iyo in aan la siinin waxa la yiraahdo daryeel caafimaad oo dhinaca markaasi dawladda waxay ka sugayeen taasoo la sheegay in gacan dagaaleen badan ay arinta ku jirtay sidoo kalena waxa haatan la leeyahay dalalka Afrika oo xanuunka ku sii shaqeeyo ayaa iyagana cabsi weyn laga qabaa in xanuunku dhibaato weyn u geysto waxa arrintan ay soo jeedatay dalalka Saxaraha ka hooseeya Afrika oo badankoodu ah kuwa qaaradda Afrika in ay xanuunkaasi dhibaato weyn gaarsiin doonto tusaale ahaan waxa loo soo qaatay dalka Zimbabwe oo mid ka mid ah dadkii ugu dhaqaalaha badnaa oo kana mid ahaa markaasi dhalinyarada dalkaasi oo aabihiin nin dhaqaale leh oo ahaa Oliver Sororo Makamba oo aad u taageera dawladda TV-na madax ka ah sidoo kalena aabihii uu nin ganacsiga guulka gaaray oo ahaa ayaa la sheegay in uu dhintay Makamba oo 30 jir ah ayaa u geeriyooday balidi isbitaalka magaalada Harare kadib markii loo waayay ayaa la yiri qalabka markaasi neefta ka saacida dadka ee lagu la xiro markaasi afka iyo waliba ka ay tahay in sanbabada kor loogu soo qaaday oo hudud waxa mid ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Harare ee xarunta dalkaasi uu yiri 20 shay oo kaliya ayaa yaala buudi dalka Zimbabwe marka ay timaado qalabka markaasi afka la iskaga xiro si markaasi dhaqaatiirtu ay uga howlgalaan arrinta taasina wuxuu ku tilmaamay inay tahay guuldarro ugu weyn ee qaaradda iyo gaar ahaan dalkooda haysata dalal badan oo Afrikaan ah waxa haatan laga cabsi qabaa in dad badan oo cadaan ah oo ku noqonayo reer Yurub oo iyagu markaasi aaminsan in qorraxda faraha badan ee halkaas ka jirta ay tagaan la aaminsan yahay ma laga baqayo in xanuunka keento Soomaaliyana waxa wali ka jira walaac ku saabsan xanuunka kadib markii dadka u dhintay magaca leh oo kamid ahaa wasiiru dawlihii wasaaradda cadaaladda ee maamulka Hirshabelle ahaana xildhibaan ka tirsan maamulkaasi Khaliif Muumin oo markaasi ku geeriyooday isaguna magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaana tan ay ka dhigan tahay markaasi in la sheegay in toddobaadkii hore markii horeysay uu ku soo dhacay xanuunka ku soo ritay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe kadibna waxaa la sheegay in markaa iyo wixii ka dambeeyay ee arintu u muuqatay in uu ka sii darayo xaaladiisa wararka ayaa waxay sheegayaan in wali ay ka jirto ismariwaaq ku saabsan qaabka xanuunka looga hortagayo dad badan ayaa wali ku talinaya in xanuunka laga hortagi karo haddii dadka isdhexgalkooda la yareeyo Horfar Media wali waxay ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed in ay yareeyaan isdhexgalka tusaale ahaan dadka danyarta ah ee shaqaysta iyo dadka qofka aan shaqo aadaynin waa inuusan meelaha ugu badan xanuunka hadirta la sheegay lagu faafiyo waxa kamid ah qaaxiyaha meelaha la sugu tagay dadku ku badan yihiin meelaha la yareeyay waxa kamid ah masaajidada ee tahay in la yareeyo iyo meelahaas faraha badan waana iyo dukaamada markaasi meelaha ciriiriga laakiin hadii la yareeyo taas oo kale iyadoo dadka shaqooyinka aan la xireenin adduunka inta badan hadirta shaqooyinka muhiimka ah oo dhan ee asaasiga ah oo dhan way furan yihiin oo ay kamid tahay shaqooyinka dhinaca
cuntooyinka qudaarta meelaha laga qaato shidaalka meelaha dawooyinka laga qaato dhammaan way furan yihiin laakiin waxay u furan yihiin si markaasi teel ah oo habaysan ay dadka Soomaaliyeedna waxa laga yaabaa in dad badan ay is dhahaan dadku waa dan yar dadka qaarkood shaqooyinka kama joogi karaan laakiin dadkan shaqeynaynin ayaa mar walba dadka isdhex gala qof shaqeynaya qof wax ka iibinayo oo meel u qaab wax uga iibinayo iska fududahay hadii uu taxadaro waa caadi laakiin dadka kale ee fadhi ku tirarka iyo maqaaxiyaha iyo sheekada iyo qaadka iyo arrimahaas way dadka inta badan lala hadlayo leeyahay fariista iyo waliba dan la'aanta faraha badan iyo shirarka aan mahatan muhiimka ahayn oo dhan laga hortago si markaas loo yareeyo in dhibaatooyinka noocaas ay yaraadaan taan ahaan dalka Mareykanka oo kale waxa haatan isagana qodobka ugu dambeeya qaybtan daawadayaal laga soo sheegaya in ay dhibaato weyn oo xagga hilibka soo footaatay kadib markii ishii ugu weyneed hilibka ay ka heli jireen hilibka doofaarka ay u muuqato inay xirantay mid kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee hilibka doofaarka ka ganacsada Smithfield la yiraahdo ayaa ku dhawaaqday inay albaabada isku dhufatay xarunteedii weyneed ee hilibka doofaarka lagu soo suubi jiray kadib markii ay sheegtay in ay u soo daateen dadkii halkaas ka shaqeynayay xanuun in badan oo kamid ah dhowr kun oo qof oo halkaas ka shaqeynaya ayaa boqolaal kamid ah xanuunka u soo daateen sida uu sheegay madaxa guud ee shirkadaas Smithfield oo leeyahay Kenneth Sullivan. Mr. Sullivan waxa uu war qoraal ku soo saaray inaysan sii wadi karin shaqada tan iyo inta dadkoodu ay ku soo daadanayaan meel hilibka doofaarka lagu qalo oo ku taala South Dakota. waxaana saas ay goordama xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka South Dakota Kristi Noem si kastaba ha noqotee dalka Mareykanka ayaa wuxuu ku tiirsan yahay hilibka ku tiirsan yahay waxa kamid ah hilibka doofaarka iyo kalluunka gobollo kale oo ka tirsan dalkaas Mareykanka oo kamid yahay gobolka Iowa iyo gobolka Pennsylvania ayaa goor hore iyaguna sheegay in dad badan oo ka shaqeynayay hilibka doofaarka xanuunku uu beegsaday taasina ay keentay in dadkii ay shaqo kari u diidaan kadibna albaabada la soo dhuftay muddo toddobaad ah taasoo haatan la aaminsan yahay baa la yiri in ay hilib yaraan daran soo food saari doonto dadka Mareykanka ee ayagu doofaarka qaybta dambe wararka waxa la dhinaca qaybta saddexaad wadayaal daqiiqateen